Israa'iil waxay ku sii wadi doontaa dadaalkeeda militari iyo diblomaasiyadeed ee lagu soo celinayo la haystayaasha si nabad ah, ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha. Waxa uu hadlay kadib markii madaxa Mossad David Barnea uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ee Yurub goor dambe oo Jimcihii ah, sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah oo arrintan ku saabsan, iyadoo dareenka loo rogay hakad cusub oo suurtagal ah dagaalka Gaza kaas oo raaci doona mid cusub. Hal heshiis afduub. Kulanka Barnea iyo Al Thani ayaa sida muuqata ahaa kii ugu horreeyey ee ay yeeshaan saraakiil sarsare oo ka kala socda labada dal tan iyo markii uu burburay heshiiskii ugu dambeeyey dhammaadkii bishii Noofembar. Qatar ayaa heshiiskaa si wada jir ah ula dhexdhexaadisay Masar, waxayna ka shaqaynaysaa sidii ay u abuuri lahayd mid labaad. Israa'iil ayaa cadaadis caalami ah lagu saaray in ay joojiso dagaalka. Sullivan waxa uu Netanyahu kala hadlay in laga guuro awood sare oo loo guuro olole militari oo hooseeya, xitaa iyada oo taageertay xaqa Israa'iil u leedahay in ay dagaal la gasho Xamaas. Dagaalkan ayaa ka dhashay duulaankii Xamaas ee 7dii Oktoobar ku galeen koonfurta Israa'iil, halkaas oo argixisadu ku dileen in ka badan 2,200 oo qof ayna ku qabsadeen ilaa 2,500 la hayste ah. Waxaan dagaal kula jirnaa jiritaankeenna. Waa inaan sii wadnaa dagaalka ilaa aan ka guulaysanayno, inkastoo cadaadiska caalamiga ah iyo inkastoo qiimaha aan loo dulqaadan karin ee uu dagaalku naga helayo lumitaanka wiilasheenna iyo gabdhaheenna qaaliga ah, ayuu yidhi Netanyahu. Wadarta guusha ayaa ah sida keliya ee lagu hubin karo in askartu aysan ku dhicin micno darro, ayuu yidhi. Waxaan go'aansanay in ka badan sidii hore in aan sii wadno ilaa dhammaadka, ilaa aan ka takhalusno Hamas, ilaa aan soo celinno dhammaan maxaabiisteena, iyo ilaa aan hubinayno in Gaza ma jirto arrin wax ka barata argagixisada, maalgelinta argagixisada iyo fulinta argagixisada. Waxa uu dib u riixay aragtida Maraykanka ee ah in maamulka Falastiiniyiinta ee dib loo soo nooleeyey uu xukumo Gaza. Ma oggolaan doono inaan Hamastan ku beddelno Fatahstan, ama aan Khan Yunis ku beddelno Jenin, Netanyahu ayaa yidhi. Doodda u dhaxaysa Xamaas iyo Fatah kuma saabsana in la baabi'iyo dowladda Israa'iil, laakiin keliya ku saabsan sida loo sameeyo, Netanyahu ayaa ku dhawaaqay. Maamulka Falastiiniyiinta ayaa si fudud u diiday in ay cambaareeyaan xasuuqii Oktoobar 7, qaar ka mid ahina xitaa waxay ku ammaanaan iyaga oo faraxsan, ayuu yidhi, isaga oo weydiinaya sida ay u xukumi karto Gaza dagaalka kadib, miyaanu waxba baran. Anigoo ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil, ma oggolaan doono in tani dhacdo. Netanyahu waan ku faanayaa in aan hor istaagay dowlad Falastiini ah. Kadib markii Xamaas la burburiyo, marinka Gaza waa laga dhigi doonaa militariga oo ku sii jiraya gacanta ammaanka Israa'iil, ayuu ku nuuxnuuxsaday. Netanyahu ayaa ka digay in Israa'iil aysan doonayn in ay dib u soo celiso qaladkii heshiiskii Oslo ee 1993 kaas oo oggolaaday in la sameeyo maamulka Falastiiniyiinta, isla markaana Israa'iil ku sii jeeda waddadii lagu xallin lahaa khilaafka labada waddan. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo mas'uuliyiintiisa ugu sarreysa ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dib loogu laabto hannaanka nabadda ee labada dal. Netanyahu, si kastaba ha ahaatee, wuxuu yidhi, waan ku faanayaa inaan ka hortagay abuurista dowlad Falastiin ah sababtoo ah hadda qof kastaa wuu fahmay waxa dhici lahaa haddii tani ay dhici lahayd. Wuxuu tixraacay go'aanka Golaha Amniga ee lagu furay isgoyska Kerem Shalom ee Huma. Badeecooyinka Nitariya isagoo ku nuuxnuuxsaday in la sameeyey iyadoo lala kaashanayo ballanqaadkii Maraykanka ee ahaa in dib u habeyn lagu sameeyo marinka Masar ee marinka Gaza. Marka mashruucaas dayactirka ah la dhammeeyo, isgoyska Kerem Shalom waa la xirayaa, ayuu yidhi. Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xal loo helo hanjabaadda Xisbullah ee ka dhanka ah Israa'iil ee ku sugan xuduudda waqooyi, isagoo ku macneeyey in aan xaaladda lagu dayn karin sida ay tahay, marka loo eego in ku dhowaad 1,000 oo Israa'iiliyiin ah oo ka qaxay aaggaas ay tahay in loo oggolaado inay si nabad ah ku laabtaan.